وحيري odaybaa jariidada akhrisanayay buu yidhi dabeetana inaan yarow dhalay ayaa mashquuliyey markuu isdhaahdaa rogba ku yarba su'aal weydiiyo mashquuliyo kan yar iska mashquuli buu isnaysiiyey marka intuu jariidadii rogay ayuu xaashi maabka dunidu ku sawiray intuu soo jeexay ayuu googooyey markaasuu intuu u dhibay buu yidhi halkaa fadhiso dunidii dib isugu rakib maabkii dunida samee wuxuu isla haddee kaa yar dirtay kugu soo noqon maayo qisadu waxay sheegaysaa inaan 15 daqiiqaba gaadhaynin markuu ka yara maqnaa ayuu soo noqday isagoo wada bahashi markaasuu yidhi waa tan waan sameeyey odaygu su'aal buu weydiiyey war ma hooyadaabaa kuu dhigtay jugraafiga buu ku yidhi markaasuu yidhi may hooyo jugraafiga ima dhigto dasaad u samaysay buu yidhi waraaqdan aad ii dhiibtay buu yidhi xaggan maabku ka sawirra xaggeeda kale qof baa ku sawiraa qofkii unbaa isku hagaajiyey buu yidhi gacantiiyo lugtiiyo adinkiiyo isugee dee dunidina way isku hagaagtay markaan qofki isku hagaajiyey dabeetana weedhii inanka yar bay ka dhigeen weedh xikmad ah waasaa maahmaahaan soomaalidu ku baxaan oo kale weedhaasaa waxay tahay cindamaa acadtu binaa'a alinsaan acadtu binaa'a alcaalam buu yidhi markii aan qofkii bini aadamka ha dhisay sawirkiisii ayaa adduunkiina ii dhismay waxay leeyihin ilmaha yari wuu iska yidhiye that's the real world noloshu waa taa qofka bini aadamkaa marka la dhiso ayay dunidu dhisantaa qofka bini aadamkii markuu dumana nolosha iyo dunidooba way duntaa qofka bini aadamka caqiidadiisa mabaadi'diisa valueskiisa xorriyaddiisa cadaaladii waxaasi markay dhismaanna adduunku wuu dhismaa bay yidhaahdaan